Soo dhawaada asxaabteena qaaliga ah waynu ku saaxiibnay boggan. Haddii aad ku cusub tahay page-kan YouTube-keena, subscribe noo taabo oo nagu dhiirigeli. Halkan waxaanu ku soo gudbin doonaa taariikh, xasuusin iyo sidoo kale bogaadin tan midda la is ogeysiiyo midda ugu fiican iyo sidoo kale barashada qaar ka mid ah taariikhda saxaabadii wanaagga iyo khayrka badneed. Maantana waxaynu sidoo kale fiirin doonaa kana hadli doonaa saxaabigii weynaa ee Abubakar Sidiiq. Abubakar Sidiiq waxa uu ku dhashay magaalada Maka. Magaciisu waa Cabdullaahi bin Abi Quxaafa. Waxa uu ku dhashay magaalada Maka ee Jasiiradda Carabta. Magaciisa oo dhammaystiran waa Cabdullaahi bin Abi Quxaafa. Waxa uu ku dhashay magaalada Maka ee Jasiiradda Carabta, haddana loo yaqaan Sacuudi Carabiya. Abubakar waxa uu ku dhashay Maka 2 sano ka hor sanadkii Maroodiga, oo loola jeedo dhalashadii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Qoyskiisa ayaa ahaa kuwo ladan. Markii uu soo weynaaday wuxuu galay ganacsi, asigoo badeecadaha isaga kala goysin jiray deegaanada Carabta iyo dhulka Shaam. Abubakar ayaa ka helay waayo-aragnimo badan iyo sidoo kale dhaqaale fiican, midaas oo u sii dheereed dabeecad wanaagiisa dadka soo jiita. Waxa uu horseeday inuu ka mid noqdo jaahiligii madaxda Quraysh ee laga baqi jiray. Wuxuu ahaa kii ku soo biiray Islaamka markuu soo ifbaxay Islaamku. Abubakar wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee rag ah oo ka mid noqda Islaamka, marna kama uusan labanlaabin qaadashada diinta wanaagsan ee Islaamka, waxaana sidaas loogu bixiyay Al-Sidiiq. Xiriirkiisa saaxiibtinimo ee Nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu gaaray. Abubakar Sidiiq wuxuu ahaa mid jirsaday inuu noqdo midka ugu fiican ee Nabiga la saaxiibay, saaxiibadii ugu horreeyay ee Islaamka qaatay. Kadib Abubakar wuxuu ahaa Nabiga sallallahu calayhi wasallam gacantiisa midig. Wuxuu hiil iyo garab la taagnaa dacwada faafinteeda, ayuuna ku dadaali jiray. Sidoo kale wuxuu ku bixin jiray hantidiisa. Wuxuu sidoo kale diinta Islaamka u sii dayn jiray muwaadiniinta Islaamka ah ee dhibanayaasha u ah dadka gaalada ah ee la haysto. Xiriirkoodu wuxuu sii xoogaystay markii uu Nabiga naxariis iyo nabadgelyo guursaday Caaisha oo ahayd inantii Abubakar. Goortii Nabigu sallallahu calayhi wasallam u hijroonayay magaalada Madiina, Abubakar wuxuu ahaa qofka kaliya ee Rasuulka sallallahu calayhi wasallam la galay safarkaas. Intii Nabi Maxamed uu noolaa, Abubakar Sidiiq wuxuu ahaa saxaabigii iyo la taliyihii koowaad ee isagoo kala qayb galay dhammaan dagaaladii oo ka mid ahaayeen dagaalkii Beder, dagaalkii Uxud, dagaalkii Dhufaysada, qabsashadii magaalada Maka, dagaalkii Khaybar, dagaalkii Xunayn, go'doomintii Daa'if iyo dagaalkii Tabuuk. Xanuunkii uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam ku dhintay wuxuu faray Abubakar dadka inuu dejiyo. Wuxuu dhintay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee maalin Isniin ah 12 Mawlid 11 Hijriyada. Saxaabada ayaana si loo dhan yahay ugu doortay Abubakar hoggaanka iyo maamulidda diinta Islaamka iyo sidoo kale khilaafada iyo hoggaanka koowaad ee Islaamka kadib dhimashadii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waqtigaas waxaa dhacay khilaaf aad u weyn oo qabiilo badan ayaa dib ugu noqdeen diinta Islaamka maadaama Nabigii waxyigu ku soo degayay geeriyooday. Abubakar ayaa ku qaaday dagaaladii riddada ilaa markii dambe uu u soo celiyay maamulka Islaamka. Dagaaladaas kadib wuxuu Abubakar ciidanka muslimiinta u dhaqaajiyay fursadihii Shaam iyo Ciraaq. Wuxuu dhintay Abubakar maalintii Isniinta ah 12 Jumada aakhirkeeda sanadkii 13 Hijriyada, wuxuuna jiray 63 sano. Khilaafada wuxuu hayay 2 sano iyo 3 bilood oo gudaheeda ku xaqiijiyay wax badan, waxaana xilka ugu dambeeyay Cumar bin Khadaab.